أيها الإخوة والأخوات، وحفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إليس قدبيا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن هذه الآية الكريمة هي الأساس الذي ينبغي لكل مسلم أن ينطلق منها لمعرفة الدعوة التي اصطلح بعض العلماء قديما وحديثا على تسميتها بالدعوة السلفية. الدعوة السلفية، فإن الدعوة السلفية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، هذه الدعوة السلفية. الدعوة السلفية، فمعنى السلفي أنه ملتزم بالكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. الدعوة السلفية. فضلا كسر هذا فردقي شناد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. بإذن الله تعالى عاوة بين سبتيا وبشنا يكون بيغنتهاي لحدي جماد الأول بإذن الله تعالى. وحينو بالله دونتا محاضرة شناد كمدا محاضراتكي سلسلة إنوها إنو سو سعودي. بإذن الله تعالى محاضرة شناد أي نقوم دونتا سيدا عوانك أتكو داركتين الآثار الحميدة للدعوة السلفية في العباد والبلاد. وحانا محاضرة بإذن الله تعالى إنو مرتوقنا هاي شيخنا أبو عبد الرحمن عبد الله حسن حاشي البربراوي حفظه الله تعالى. isaga ayaa mawduuca inoo faahfaahin doona oo biidni illaahi tacaala inoo balbalaarin doona. waana muxaadaradii ugu dambeysay silsiladii muxaadaraadka ahaa ee ciwaankeegu ahaa haadihi hiya salafiyatu facrifuuha. waxaan ku soo dhoweyn doonaa sheekha si uu mawduuca inoogu faahfaahiyo. falyatafadal ishaykhu mashkuuran ma'juuran biidni illaahi tacaala. العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة كوباد وحينوما هذا نقينا الله سبحانه وتعالى خالقه منعم كريم الله inoogu nicmeeyey nicmooyin aynaan tira koobi karin. nicmooyinkaasi ay u weyn tahay nicmatu lislaami wasunna, in ilaahay uu naga dhigay dad muslimiina. muslimiintii markii bidca ay ku dhex faaftayna ilaahay inuu naga dhigay dad raacaya sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waddadii saxda ahayd ee ay mareen ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii u khayrka badnaa. هذه نعمة عظيمة والنعمة هذه أدوين ومدن الله حصوصنا هذا إلهينا سبحانه وتعالى اللوغة ما أدنقه سيدي أورانشيرين سلف كقاركود والله لا أدري أي النعمتين أعظم علي قرن ما يلبض النعمة إلهي وسيئي تباوين نعمة كوبات وأن جعلني مسلما وأنه إلهي قد لي مسلم gaalnimo ilaahay iga badbaadiyey. nicmada labaadna waa an anjaanii min alahwaa, waa inuu ilaahay iga dhigay muslim bidca iyo hawa raac aan ahayn, ee raacaya waddadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo waddadii ay mareen khayru haadihi lumma, saddexdii qarniye ummaddan u khayrka badnaa. ilaahay baa subxaana wa tacaala islaamka saxda ah nicmo ku sheegay. وأتممت عليكم نعمتي
إلهي سبحانه وتعالى يريه فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة دادكو أي ولا لكم نقدين إلهينا سبحانه وتعالى وطام يالي دادك مسلمين تا والإسلام الصحيح وإسلام كي صافقاها لبدا أصل كل إسنا إلهي لك اليهي سبحانه وتعالى يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا الراعه سلفية لغا هدليو علماء ay ka hadlayaan ليست إلا الإسلام الصحيح wax kala maaha وإسلام ka saxdaun وإسلام ki saxdaa ayaa waxa astaan iyo calaamad u noqday dadkii islaamka saxda haystay ee cilmigoodu waa cilmi sax oo saafiya caqiidadooda ahayd caqiidadii saxda ahayd nabi maxamed uu ku tarbiyadeeyay cibaadadoodu ahayd cibaado sunnaha iyo itibaaca ku dhisan oo bidca ka fog mucaamalaadkooda iyo dhaqankooduna uu ahaa mid waafaqsan islaamka ilaahay nabi maxamed uu soo dhiibay dadkaasi ayuunbaa astaan u noqday islaamkii saxda ahaa islaamka saxda waqtigoodii ayuu jiray intii ka dambeysay axwaalul muslimiin way isbedeshay hadday caqiido tahay iyo hadday cibaado tahay iyo haddii ay cilmi tahayba taasi waxa ay keentay in iyaga islaamkii saxda loo nisbeeyo markaa salafiya la leeyahay waa islaamkii saxda ay haysteen ummadan qaybteedii hore nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu amaanay uu yiri khayru nnaasi qarnii thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yafshu alkadhib dadka waxa u khayr badan qarnigaygan waxa ku xiga xagga khayra kuwa ku xiga waxa ku xiga kuwa ku xiga inta beenta faafi doonta أعظم كذب وفشى بعد القرون الثلاثة المفضلة هو الكذب على الله والكذب على رسول الله والكذب على دين الإسلام بينت وين فافتي تتكون أكسن دبدون وبينت إلهي لقى بين أبورته نبي محمد لقى بين أبورته حديث موضوع على الدتشيو دينتي إسلام كان لقى بين أبورته ولوغو أبتريو وحان كمدهين وإسلام كنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمده وقد انتهي أن كتشرين سلفية وانتهين بضن بعلماء كوع العليين الوع العليان وارين صحة كتب العلماء كقرا هذا الكودنا كبضا سببت الوع العليان وحا ايتهي ضدك وحا الله تلمام يا عدة راعي لهاين عدة إلهي وإن أمري إنه كبر إنه رقعت كسته وددودا inuu inagu hanuuniyo ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim annagoo intan ka daayar tobanaan sanadood ka hor ayaa masaajidkan laftiisa walillahi alhamdu masaajisha maanta laga sheegay lafteeda laga sheegay laakiin waa cilmi waa khayr waa tilmaan waa dardaaran in lagu celiyo mudan oo qofkii hore u yaqaanayna la xusuusiyo عند أي كحسب تاينا علمي أهان يا أقوان أهان لو برو ما هدعو سلفية سيدتك غاركود أيوها إستان أما دادك غاركود أيو كنا لعيان حزب الله ميدا حزاب تمان تجرتين مقعيضة له يا أمين ردا يا دستور ردا يا قواي سمايستين يا چندياشا سياسيقا السلفية إنما هي اتباع للمنهج المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الموروث عنه وعن أصحابه وحكى لما سلفيه وإلا الراعه منهج كي ودد إلى إلهي محمد عليه الصلاة والسلام كسودة وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه وحكى لما هو إلا الراعه ودد إلى قد حلي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي صحابتي سي خير كبضنا في جميع مسائل الدين مسائل الدين توردا سلفيadu waa inta waa in la barto inta laguna amal falo dadkana loogu yeero ziyaadad iyo dheeraad kale ay leedahay ma jirto dadka qaar kood marka ceeb kale ay waayaan dacwo salafiya waxa ay ku ceebeeyaan khaladaadka ka dhaca afraad manhajkeeda markay khalad u waayaan iyo wadada cilmiga ay ku socoto
hebel baa waxaa sameeyey iyo mid baa waxaa yidhi waxaasay ceeb uga dhigaan wahada laysa cayban fiiha wainamaa huwa caybun fii man facalaha arrintaasi ceeb kuma aha adacwa salafiya manhajkeeda wuxuu ceeb ku yahay qofka sameeyey waayo waa islaamkii saxda ah wax kale ma aha muslimiinta faraha badan khaladaadka iyo gafafka galaya ceebtooda iyo khaladkoodu sida aanu ahayn mid lagu dhaleecayn karo diinta islaamka wakadalika man yantasibu ila hadihi dacwa qofka dacwadan ku abtirsanayana waa sidaas oo kale oo islaamkii saxda ah unbuu ku abtirsanayaa ceebtiisu islaamka saxda qaban mayso oo laguma dhaleecayn karo arrinka labaad ee dadka qaarkood iyagoo xaqiiqadiisa ogba dacwa salafiya ay ku dhaleeceeyaan waa inay yidhaahdaan waa xisbi hadda iyaga xisbiyadii iyaga ayaa difaacaya xisbiyadii haddii ay xisbiyadu tahay wax wanaagsan maxay dacwa salafiya ugu dhaleecaynayaan umalayn ma wax wanaagsan hadday tahay inay xaggeeda usoo tuuri lahaayeen arrinta noocaasi waa ictiraafun minhum biana alxisbiyata shayun madmuum waa qirasho ay qirayaan xisbiyadu inay tahay waxun waayo waxyaabaha kale wanaagsan ee dacwa salafiya ay leedahayba ma sheegaan waxa arrinkaa u sheegaya waa litanfiiri naasi can hadihi dacwa waa dadka si ay uga didiyaan dacwadan waxay doonayaan dacwadan inay garab dhigaan oo ay la simaan dacwaadka xisbiga oo dadka ay ku idhaahdaan sida dadka qaarkood masaajidada qaar ay si cad uga sheegeenba tanina waa xisbi tanina waa xisbi taa doonaysa adigu gal macnuhu waa maxay waa la isku garab dhaca u weeye haddii ay xisbiyadu tahay wax fiican calalaqal waxay odhan lahayn xisbiyadooda ka wanaagsan bay odhan lahayn ee taayada soo gala oo dadka ayay ugu yeedhi lahaayeen xisbiya waa la yaqaanaa alxisbiya alcasriya iyo aljamaacaat addiiniyatu siyaasiyatu alcasriya wax la yaqaano weeye qofkii soo marayna waa garanayaa qofka kalena culimada soo martay ha ka waraysto waxaana khulaasadeedu ay noqonaysa soo koobisteedii haddii la isku dayo in laga bixiyo suuro qofku uu fahmi karo waa dowladaha islaamka ku hoos nool oo madaxweyne leh oo wasiiro leh oo taliyayaal leh oo barasaaba leh oo gudoomiyaal degmooyinku ay leeyihiin leh oo xubna leh oo kaadh la siiyo mararka qaarkood beeca iyo ballan laga qaado habeen iyo maalin la yaqaano xisbiga lagu daroodha maanta ayuu ku soo biiray hebel fahal dacwa salafiyatu hakada dacwa salafiya miya sidaa tahay la waa cilmigaa la dhiganayo masaajidada iyo macaahidda iyo maraakista iyo jaamicaadka lagu dhiganayo wey kadibna lagu camal falayo dadkana loogu yeedhayo intaa in ka dheeraada oo waxyaabaha aynu sheegnaya oo dacwa salafiya ay wadataa haba yaraatee ma jirto dadka qaarkood waxay odhanayaan iyaduba intaa way leedahay waan weydiiyey qaarkood waxaan ku udhi bal ii sheeg amiirkeeda dacwa salafiya gaar ahaan dhulkan soomaalidu ay degto nin sheekha buu ii sheegay oo meel fog joogo uu ihi kaasa amiiru ah waxaan ku udhi maxaad caddayn u haysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi anuma qirsano arrinka waan inkirsanahay baan idhi ana salafiyun wa unkiru dalika famaa bayinatuka nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam albayinatu cala almuddaci maxaad caddayn u haysaa cadayni ma jirta ayay noqotay waxyaabaha arrinta ay ku xoojiyaan waxaa ka mid ah oo dadka qaarkood oo dacwadan sida ay tahay aan u fahmin lagu dagi karo in la idhaahdo masaajid bay leeyihiin maraakis bay leeyihiin madaaris bay leeyihiin muxaadaraad iyo duruus bay leeyihiin nacam hada saxiix intaasi way jirta laakiin intaa xisbi lagu noqon maayo haddii intaa xisbi lagu noqonayo waxay noqonaysaa ahlu sunna calaa mari alcusuuri waalduhuuri waalsiniini waashuhuur in la yidhaha iyaguna xisbi bay ahaayeen waayo intaaba ahlu sunna weligoodba waa lahaayeen masaajidada ahlulbidca iyo ahlulahwaaga aan ahayn oo dacwadda xaqa ee tawxiidka iyo sunnaa laga faafiyo waa lahaayeen madaaris waa lahaayeen maraakis waa lahaayeen culimadoodu arday waa lahaayeen وكل عالم من علماء أهل السنة سيدا غالب كأرضي أيولها دروسي سكحران وكفايديستا سيدا سوكال علماء أهل السنة كانوا يتزاورون
ويتعاونون على نشر السنة والتوحيد على مر العصور والدهور وحيان كوا يسوكا الشدى فافنت التوحيد كي يسنها كوا إلهي درادي يسوب بوغدا كوا سلامة يسود دراما ورقنا كو قران أما التليفون كوا ذا هدلان أما مرقا قار كودا يسوي مادان intaasiba weligeedba waa soo jirtay culamaa ahlu sunnana bidcana kumay tilmaamin xisbiyana arrinka noocaasiya umay aqoon arrintaasina manaaqibta wanaagyada iyo sifaadka wanaagsan ee ahlu sunna ay leeyihiin ayaa ay ka mid ahay dacwa salafiya culimada maanta muctabariinta ah ee caalamka islaamka laga yaqaan ee lagu yaqaan cilmiga saxda ah iyo dacwada saafiga ah iyo manhajka saliimka ee badqaba ayaa ka marxaati kacay inay tahay dacwada xaq ah الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وحفظه وحيري السلفية هي الجماعة التي على الحق سلفية واحد كلامها وضدك وضدي حق هيد وهي التي يجب الانتماء إليها يدي واجب تحقفك ينقاب ترصد وقف والبا رقي الدمر يري واوين مضح يددك الله تليه علماء عامة الناس وحن لا نهي بكل صراحة والنداء يجب عليهم أن يكونوا سلفيين وحواجب كواي نقدان سلفيين معنى إن الراعان ودد النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة أي برتان وأي كعمل فلان وهي التي يجب الانتماء إليها والعمل معها وتواجب كتاين لا رشقيه ويوحن وذان بوحي حقها والانتساب إليها يد الله نسبة شاكته وما عداها من الجماعات يجب أن لا تعتبر من جماعات الدعوة وحي إذا كسوها جماعات دعوة صح ودينا الله رقبة صح وواجبة لأنها مخالفة ويودد صح ده هيدا النبي جاء الصحابة لقد حلبه خلافته مدين بدنكو خلافتية مدكي رئيس الطيبة كيف نتبع فرقة مخالفة جماعة أهل السنة وهذه السلف الصالح سيدين راعينا فرقة خلاف صن أهل السنة طريقودي إيو وددي صحدا هيدا لقد حلي ومدن قيبتدي هوري وناقي خير كبدني وحول الشيخ بركله isagoo ka jawaabaya shubahada salafiyadu waa jamaacad kan lamida وقول القائل إن الجماعة السلفية واحدة من الجماعات الإسلامية هذا غلط إن يراهدو سلفيين توا جماعات كانوا كميدة تاسوا غلط الجماعة السلفية الجماعة الوحيدة التي يجب اتباعها والسير على منهجها والانضمام إليها الجماعة السلفية وجماعة قرى أي الله يا شيخ حق كتاغا واجب أي تاي إلا الراعه واجب أي تاي منهج كذا إلا قصعده واجب أي تاي قفك إنه كم ينضغضه والجهاد معها وإذا مال إيو قلن إيو عرب إيو قعان انتبه جهاد كي ودرق قيبقاته وما عداها فإنه لا يجوز للمسلم أن ينضم إليه لأنه مخالف وحلال وحي كسوها هذه الدعوة منهج كلوته منهج كسلف كخلاف صن مسلم كستو مبنانا إنه كم من نغضر وهو حقي خلاف صنوي وقال حفظه الله تعالى ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى أحزابا ما حزب كم إذا أحزابا ما أنت أحزاب لو يقان إما عادتك أو يقانين وإنما هم جماعة على السنة والدين وجماعات مكوحة ذا وودد النبي عليه الصلاة والسلام يدينتي الصحة هايد صافقة هايد كسوغان وحلايا ولا ليال الدعوة السلفية وناقي حق كستا وعدك للغهلا وكل احتراه خلد إيا حمان وكستا وددك قار كودا ونسبة شيغانا يا إسمايان ددك كلايا كوبادانتح عندك لا خلاف صنبا كوبادانتح سورة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سيدا دينتا إسلامك حق كستو ديمها كلا كتيرا دينتا إسلامك وكتيرا خلط كستو دادك مسلمين تا كدعانا مدك حنبا كدعا دادك ديمها كلا كوابترسا سلفيدنا سيدا عينو شاقناي وإسلامك صحدها قف كستا
ودعوة سلفية كانتقال وكانحراف وكجورة صغيرا كان أو كبيرا هير هذا ما هو إله ماشا وجوري خلط كستو دعوة سلفية ودد كذا وكشة جاي يسوى كبدا بويا الله وللأسف وحلقة يا أبا مركو دعوة سلفية وانتسابي إن خلادات كاسي ووينيني ولما ودد صحنان ومرهين إصلاحين تودي آقاتين تود خلادات كأفراد يددك كدعية دعوة كواتر صنعية هذا هو شيء لكن إذا انتقل من هذه الدعوة انتقل كذلك من منهج الرد على المخالف وحاو كقورة يا قفكم منهج كي ودد الصحدة أيضا وحي الصحدة خلاف صن إلا الرديو وحانا شقدي سواء كصوروا ريساون دعوة سلفية إنو دعاية ديو هذا ماشا وقوري وحاو شاقي وحكبضا نمويالين هذا أنا وحو دعاية يا دعوة سلفية هالكيدي حقاس أرنت نوعاسي وحي علامة يا أستانو تاي أنه يتبع هواه إنه قفكاسي يقف هودي سراعي إيان وهين إنسان أخذته غيره على دين الله قف أي قاضي دينة إلهي سبحانه وتعالى وححونه وقبا أيه ودون يددكو إنه كتوصنا ذا ينعيب وقبه خلطك يا انحرافك يا بدعده iyo wixii la halmaala intaasi muqaddimiyo hordhacayato waxaana laga yaabaa bal kulli waa xaqiiqo culimadii muhaadaraadka iga horeysay intaba waa sheegeen wa min baabi taakiidun wa siyadkayna uun jazakumullahu khayran wa jazakumullahu khayran hadanu imaado mawduuca المآثر الحميدة للدعوة السلفية على البلاد والعباد رادتك في عن الدعوة السلفية أي كل هذا ضدك ينولك با وحلا سوكوري كرما وهي السلفية هي الإسلام الصحيح وإسلام كنبي محمد الله قد حلي سيدي سيلو إلاليي وحناها لقدرين إسلام كاسنا وناق مويانا وحكا لما إيمان وإن أقصوني نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام يكور رميان سلمان وكلا وحي تلمامين خير والب النبي عليه الصلاة والسلام إنه الشاقي وأنا حق إلهي أنبياء الرسول وصاري نبي كسته إلهي وحكوها تبين حقي وانا كسته ووقيا ومدي سين وشاقي حمان يدبات كسته ووقيا هنا ومدى إلهي سبحانه وتعالى وصدري إنه وقدقه وحان شاقي دونا وإسكال دور قضبا وتصاليالون تصالياشانا بإذن الله سبحانه وتعالى وحان اسكده دونا واقعا إنه وإنه كنا لنهي إنان كدبقه وأن وافتشي أيان اسكده دونا الدعوة الإسلامية الصحيحة دعوة إسلامية الصحدة والدعوة كسعة منهج النبي الصحابة الدعوة السلفية وحان ورنكرا وقرحوا صوبح دي عالم كان قودها عالم كانوا مقدي كتير ظلمات بل مقديو نوعي بدن وعالم كجهوين كي صودان افتيميسي ونور كيدو كقلال عيري إلهي سبحانه وتعالى تلمامي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والله سبحانه وتعالى نبي محمد ومدى مصدرين نبي محمد بدك وهفي وحلال وحي حمان أي لهايين أيو كسار يوحدي الدد والسيباي وناقي إلهي وسودي بينه وكقر حني نبي محمد عليه الصلاة والسلام بدك جالب كسار يعلمك حق إلهي وقيم بدك بري نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقرآن إيا السنة باله نبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يطبق هذا الإسلام في حياة الناس إسلام كاسموها المعلومات إيا النظريات أركتيو إيا وحيابا أقونا وقفك مانكي سقلاء قرى وحوها إسلام ذاتك نلشهد اللغو الضبقاء أيها وقفك خلافنا مركب الله الله لردها خلاف وحدمت هذا يكترت الدنيا آخرة إنها كنت وصناته إلهي سبحانه وتعالى آياتك القرآن وحو كنت المامي إنه يهي ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلهي سبحانه وتعالى وكتعال
وكإلالية حفظية مؤمنين مقديدو إلهي مؤمنين كصاري وحانو إلهي سبحانه وتعالى وصاري نور كي إيمانك نور كي توحيدك نور كي علمك نور كي اتباع السنة إلا الراعو نور كي أخلاق إيا معاملاتك والأكسن إسلام كان إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد وصو ديبي سداسي أيوها ولهذا عالم كوحكوية شهراد وين وحانو كسمي يسبدل الموقضة وأن لا ينكري كرين وقف اسكد يكرين وينكران وشرين لا مكابر وفي حقيقة مركا يستيدسين اياه والضفير اياه موياني الدعوة السلفية هكذا ميل كستوى الدعوة السلفية هي كهنا قاعدة وعلماء وطلبة علم دعوة منهج كذا كسعود هاي تشوغان مقالوين كواوين هالنقطة تولوين كيمية ميل كسته في كل مدينة وقرية وفي كل حي وريف وبين بدو نور كاس ايا كصويف بحاية علمي اهان ايا عمل اهان ايا دقن اهان با نور كاس يؤمد مغضو لقرين كرين ويشهد عليه المخالف فضلا عن الموافق وحتى قفك خلافا منصف كائن الهي كبقية سبحانه وتعالى عدالة كد ذاليا وكما الخاتي كعيو وما أنت واحد مقالات فربضا وعلماء له وقيبها كلاب برشادة كميدة وكما الخاتي كعيا الدعوة السلفية نور كذي خير كذي وناك كذي ورنا يا علمي كيبا يدد كبرين توحيد كيبا يفافيين خرافات كيبا يلدقالمين waxay hor istaageen dadkii irhaabka argagixinta muslimiinta ka shaqeynayay laakiin dadkay ka hadlaan waxaan in yar buu daba dhigaya si aan loo qaadan dacwadaas in yaroo dadka shaki gelisa oo dadku ay dib uga yeera istaagaan ayuu daba dhigaya laakiin waxa ku filan dacwadan inuu ka marxaati kacayo wanaag iyo nuurka ay leedahay hadii dacwa waxa kamida maasirteeda raadadkeeda fiican ay leedahay iyo wanaagyadeeda waxa kamida annaha sabab li takthir ar-rahma waxay sabab tahay rahmada ilaahay subhanahu wa ta'ala inay badato oo meel kasta oo dacwadaas ay ka qaado ay ku faafto rahmada ilaahay waa badanaysa rahmada ilaahay adduunyaha lagu helaya oo diintu ay u horeyso a'zamu ar-rahma ilaahay uu ku siiya wa an yarhamaka bil islam was sunnah wal ilm sahih وإنه إلهي كوغونا حريستين وكوافجية إسلامك هي السنة ودد النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي الشركية بدعاه وكابد باديه أعظم الرحمة علمي صافية نبي محمد لقوه سودتيه إلهي إنه كوافجية برشديسة أو كوغونا عمايوي أعظم الرحمة وإنه إلهي كادق الداعي إلى هذا الدين الصحيح من ذلك كوغوية ريا دينة الإسلام كيصحدا ويتبع ذلك الرحمات الدنيوية arinta waxa raacayo daba socdo sabab ay noqonaysa rahmada badan oo arrimaha adduunyo ku saabsan in la helo ay sabab noqonaysa ilaahay subhanahu wa ta'ala tilmaamay islaamku inuu rahmad yahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam inuu ilaahay soo diray khalqigu saay rahmad u helaan wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wax kale kuma naan dirin waxaan ku diray oo diristaada sabab u ah أما حكمة لقلية أيتاي عالمين تو رحمة إلهي سبحانه وتعالى إنه هلال فكان عليه الصلاة والسلام كما قال رحمة المهداة نبي محمد وحوها سيدو الشيغيبة رحمة إلهي سبحانه وتعالى خلقا وسو هديي وعن رحمة دا كوكو ليستي عدي نبي محمد الرميسي وددي سراع عدي خلافتان كي سنيس كيلاليسي قف ولي من رحمة دا وحو كهالي راعيتان كنبي محمد عليه الصلاة والسلام انت وكحقيتشي قفك نبي محمد عن رمين رحمة دوا كقضي قفك نبي محمد عليه الصلاة والسلام رميي لكن كو خلافي الرمى بدن أمير رحمة دوا ككلا لمن توا ككلا دنتالنتا رحمة دا إلهي وكشيغي دين الإسلام هي الرسول كاسيدا إلهي وسوديبي دعوة السلفية أيها لقهيلية لأنها هي الإسلام والدعوة السلفية وحكلا معها وحصب وجديدة وضضايها الأبورتين وإليه مادين وإسلام كي صحدها صافقها والسيدي يسلقوا إلى علينا أيوه
cidii istiraado wax ka bedela ama ku darana lagaga tiraabayo la oranayo kadaa kii ku darana dadka loo sheegayo la oranayo waxaasuu ku daray dadaw diintiina ka ilaashada dacwa salafiyya raadkeeda fiican waxa kamida min aathariha tayyiba alhamida annaha sabab لفهم الإسلام فهما صحيحا waxay sabab u tahay qofku islaamka inuu si sax u fahmo maanta waxa la leeyahay dad fara badan oo islaamka ku abtirsanaya oo haddana waxa ay galeen islaam baanu ahayn waxa laga yaabaa dad gaali ah inay shiraadaan islaam oo inta gacanta ay u galeen ay noqdaan raafida mushrikiin oo kufaara waa islaamteen bay islayn waxana galeen diinta islaamka ma baahaba waxa laga yaabaa inuu galo wax weyn qaadiyaaniya ama al-ahmadiyya qolada la yiraahdo ee nabi bada uu sheegto ama atbaacdiisu ay ku sheegaan ninka hindiga madaxda iyo hormoodka waa hadana qofku wuxuu isleeyahay islaam baad gashay as-salafiyya tu'arrifu kull muslimin ma huwa al-islam as-sahih waxa ay qof kasto muslima u qeexaysaa islaamkii saxda ah ay tahay qofka gaalkiina inuu soo galo ka muslimka inuu ku toosnaada ka uu yahay bay u tilmaamaysa dad fara badan ayaa islaamkoodu uu yahay islaam ay kufriga iyo gaalnimada kaga badbaadayaan oo aslamu laakiin waxay afka uga galeen dad muslimiina oo aan gaalo asliyiin aan ahayn murtadiin aan ahayn laakiin bidع fara badan ku dhex jira oo hadii la shaandeeyo waxa ilaahay uga diin dhiganayaan ay ku amal falayaan hadii la shaandeeyo ama la haadiyo inta saafiga soo hadhaysaada ay yartahay inta kalena ay noqonayso qashin iyo waxaan sax ahayn oo islaamka ilaahay nabi maxamed kaleey salaatu salaam ku soo dajiyay aan kamid ahayn الدعوة السلفية islaamkii saxiixa ahaa ee nabi maxamed kaleey salaatu salaam lagu soo dajiyay ayay dadka cilmi ahaan u baraysa manhaj ahaan u tadbiiqinaysa dadkana ay ugu yeedhaysaa oo ay u tilmaamaysaa taasina maxay ka dhalatay taas waxay ka dhalatay الكتاب والسنة الصحيحة maanta waxa jira dad islaam ku abtirsanaya oo الكتاب leh sunnahina diidan waxa jira kuwa leh الكتاب والسنة laakiin sunno uu yahay oo mawduuca iyo daciifka iyo shaadka iyo munkarka nabiga kaleey salaatu salaam u nisbeynaya waxa ku jirana aqeeda ahaan iyo cibaada ahaan iyo amal iyo muamala aan diin ka dhiganaya waxa jira kuwa leh الكتاب والسنة صحيحة waxa waajib in la raaco kitaabka iyo sunnaha nabiga ka sugnaaday laakiin ala ay fahmi see loo fahmaya ama fahamka madaxdooda iyo odayaashooda see u fahmeen ugu fasireen bay u qaadanayaan ama bas iyagu sida ay u fahmeen ayay isaga qaadanayaan laakiin ad-da'wa salafiyya inta maxay kaga duwan tahay ad-da'wa salafiyya waxay leedahay al-kitaab was-sunnah as-sahihah ala fahmi salaf al-ummah wa ila raa'a kitaabka wa qur'aanka وإلا راعوا السنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وليبا انت صحيحة وحديث ضعيف الدين لقوما دي سكره عقيدنا لقوما دي سكره عبادنا لقوما صلين كره معاملات كل نوع الدون ايام بهان نقضاني حديث ضعيف لقوما دي سكره أمور الدين وردن حديث ضعيف في مبوص سقناني أصل يدني لما نغن كره على فهم سلف الأمة كتاب كي السنة وحيلين هل لو فهموا sidii ay u fahmeen ummadan qaybteedii hore nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ku tilmaamay inay yihiin khayrun naas taadambe qodobka dambe ar-rakizatu thalitha sida uu ka cabiro sheekh al-albani rahimahullah wa tajmi'u firaq al-umma ay kaga duwan yihiin ahlu sunnati wal jamaa as-salafiyun wa tay kaga duwan yihiin wa tasaabu noqotay inay iyagu ku sii haystaan al-islaam sahih inay ku sii taagnaadaan wadadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabada oo su'aal baa jirta mudan in la isweydiiyo ma huwa sababu inhiraaf al-firaq al-muntasiba ila al-islam maxaa sababu ah firqooyinka islaamka ku abtirsanaya inay hadana inhiraafaan wada khaldan ay baraan badankooda al-kitaab was sunnah ma diidana
sababtu waa xagga fahamka weyn fahamkii baanay kaga dayaan الصحابة ومن تبعهم بإحسان صحابة عدي وناك الرعضي وصده الشيخ عبد الله بن عباس مركو ويدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هذه الأمة إلهها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة وحوري عمر السلام بن عباس الله عليه ومبني الله قرب إلاذي كتاب نبي قرب إلاذي كتاب قرب إلاذي قبلة قرب يتكتب فما لهم يختلفون هذا هدنا يسو خلافيا يختلفون في أمور دينهم الرماد دين تضم حيث خلافيا قال عبد الله بن عباس يا أمير المؤمنين نحن يعني الصحابة بوجه قرأنا كتاب الله وعلمنا فيما أنزل إنه الصحابة هدينا كتاب كإلهي بين أخرنا وحانين نقانا آيات كان وحي كهد ليانا يكسو الدقين ويأتي بعدنا قوم يقرؤون الكتاب ولا يعلمون فيما أنزل وحد بدني من دون الدد كتاب كان أخريا آيات وحي كسو الدقتاء كهد ليسانا قران مايان iyaga sida ila tahay fahamkoodu yahay bay ku fasiri doonaan فعند ذاك يختلفون ثم يقتتلون markay kitaabkii iyo sunnihii sida iyaga ay la tahay u fasirtaan way iskhilaafi doonaan markay iskhilaafaan way islayn doonaan wada arkay maanta waxa muslimiin islaynaya mid walibana uu leeyahay ka kala dhiigiisu xalaal buu yahay oo islaamkii ma haysta kaasi aniga ayaa islaamkii haya انحرافku halka uu firaqoodan kuwii hore iyo kuwa dambaba uga yimi waa halka waa kitaabkii sunnah inaanay u fahmin sida ay u fahmeen salafu hadhihi al-umma amma da'wat salafiyya mar walba waxa la kitaab wa sunnah ala fahmi salaf arinta noocaasa dadka aan macnaheeda iyo nuxurkeeda aan fahansaneen iyo qiimaha ay leedahay waxa laga yaabaa inay la yaabaan raan maxaa salaf salaf khalaf khalaf ka labada midnaba aan ka warran buurin سلف سلف بعض لا خلف خلف كان لبدا midna baa in ka war kaan labada midna baa in waa dal waa qof lumay weey qofka wadadii salaf kaan wadadii nabiga saxaabada qof lumay de weey ilmi ahaan iyo amal ahaanba imisa ayad ku jirta kitaabka ilaahay imisa ayaa xadiis ku jira sunnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam oo kitaabka iyo sunnaha in la raaco raacinaya in la raaco dadkii wanaagsan wadadooda la maro والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اتباع الكتاب والسنة ومعروف اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وكتابك السنة صومها والذين اتبعوهم بإحسان مهاجرين يا أنصار قاران كوا دي هورا مركي لا شيغين كوا يغا راعيبا لا شيغ واتباع كله سو مركز وكتابك السنة شيء كله او سبب نقونيا si sax in loo fahmo in la raaco tilmaamaya وكذلك عليكم بسنتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووحي إلهي وكسو دجيه يا شرعي إلهي وديبي وسنة الخلفاء الراشدين هذا كتابك يا السنة على فهم السلف الله قد ضبا ورنا هين النبي محمد يري فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أرنك نوعاسي وشعار لأهل السنة سورة شيخ الإسلام رحمه الله أهل البدع يبغضون ذلك وقد يتمسحون به أحيانا إذا رأوا فيه مصلحة أرنك نوعاسي والديدان إنك الكتاب والسنة على فهم السلف والضبطيقون أما السلف كي الله أبتر صدول إلى أنه السلف كي بان راعي علمي أني عملها أنبا مرارك غير كود وادعي كرتا إنه يسكو مصلحان هديها وأركان inay maslaxadu ugu jirto oo masaajidkii laga akhrinayay daraad in al-intisaab ila salaf uu bid'a yahay ayaa laga yaabaa shalayna in laga yiraahdo anagu salafiyiin baanu nahay marka anagu salafiyiin baanu nahay daasi wax iska celin weeye iska caabiye isdifaac weeye naam ad'u salafiyya rawadkeeda wanaagsan waxa kamida jam'u kalimati al-muslimiina ala al-haq muslimiinta in lagu mideeyo xaq nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wuxuu yimi ummada iskhilaafsan hatta isku khilaafsan fima ya'budun wa ya'budayaan wa fi kayfiyat ibadatihim iyo qaabka ibaadaadkoodu ay u dhacayaan wa fi umuri diinihim
iyo arrimaha diintooda isku khilaafsan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dadkaasi wuu mideeyey jamacahum laakiin xisbi kumuu midayn iyagoo kale caqaa'id iyo cibaadaad iyo acmaal duwan iyagoo kale manaahij duwan jamacahum walaakin jamacahum cala alxaq xaqa ayuu ku mideeyey kitaabkii iyo sunnihii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhibeeyey ilaahay baa subxaana wa tacaala nabi maxamed sabab uga dhigay in quluubtooda islaamka uu ku mideeyo wactasimuu bixabli illaahi jamiican ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بماذا؟ انت كذب يسافة سيريسا فأصبحتم بنعمته إخوانا نعمة وحي قال النبي محمد إلهي وسولي هي التوفيق ده إلهي أي ولا لا يكون نقدان هذه الدعوة ما دام أيضا مدين يسو حقنا يكون مدين يسو waxa ay ka hadashaa hadiya jeeraale dadkana ay uga digtaa ma yufariqu al-umm wixii umada kala geynaya qabyaaladii bay ka hadashaa iyo al-asabiyatu al-jahiliyya waxay ka hadashaa al-hizbiyatu siyasiyya wala hizbiyatu fi al-islam hizbiyya islaamka dhexdiisa lagama ogola bay leedahay ahzaab siyaasiyo xukum ku tartamaya noqdaan ahzaab diiniyo iyaga laftooda ajandooda ay kamid tahay xukunka iyo kursiga inay gaaraan marka dambana isku qabsadaan ama doorashaan ay isugu qabsadaan sida ka dhacday Masar oo xisb nuur ya ikhwaan muslimiin iyagii ay ku tartamayeen ama se dagaal ba arintu ka gaadho sameelo badan ka dhacdo Afghanistan ay kamid tahay oo ay kamid tahay waxa weeyaan bilaad Soomaal oo kuwii ahaa kuwa magac qura wata wal maxaakim islaamiga loo oran jiray وأوغاين علماء الدعوة إليهم فرق جمعهم اسم ولم يجمعهم غير ذلك إليهم فرق مقعون كل مية لكن أنا كوكولا صنين وحويان أصوشة منهجك إسلامك صحدا دادك اللي قد سيريو markii dambana natiijadaas arinta natiijadeedu baa soo baxday waa ku yagi dagaalamay jamaa islaamiya حزب الإسلام الشباب شباب هذنا قيب كميدي داعش أي نقطي داعش يا شباب ودقالمين مال ما نرقنا وإنه مغلينا ولهذا أرنتنا يددك غير كل يبينوها محل حزبية وقال لي صار يتشير عليه هي قاب الدعوة كشغير ايو ددك وحدق ايو خير إنو يهيب قارسينيه خير كاي ودان مدي الدنين إلهي كابال مريم الله نوحي خير أي وضان إلهي كاقبله لكن خير كاي وضان دفاع من نقون كارو وحا خلدا أما بدعاه نقطه أما تفريق الأمة إلى حزبيات النقطه وما دليل لك لقيه أحزاب لا قيبيه وحويان هالنقطه أهل الدعوة السلفية وحي اعتقاد سيئين ومدوا مدين تيوبهان تيني تهي من ماذا وبانت من ما قلبي ومضوا بان ومضوا هنا حق علمك كم يدودوا علمك الدينك ومضوا هنا عقيدتك كم يدودوا ومضوا هنا منهجك يوضد الله سبحانه وتعالى قال انت ساي عمر ساي كم يدودوا اما الا يراده ومضوا يغو كلا عقائده يغو كلا مناهجه يغو علوم كلا دوان ومتناقضه متضاده علوم اسكوري من سو اسخلافسن كلا وتا إلا رادو شاعر كميدا إنه مقعين وبحنه waxay leeyeen arinta noocaasi ay faa'iido ma laha bal waa arin madmuum arinkaas say ilaahay subhanahu wa ta'ala uu maruu ka waramayay dadka qaar ko tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta ina dadka isu tusto inaad midaysan tahay laakiin haqiiqatan qulubtu ay kala tagsan tahay hada madmuum وليس بممدوح أرنكاس هو أرن دليعيسا سآيات كعب أرن أمانا ما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وحير هذا مركو إجماع كهد لا أيوه ماذا مدني ماذا هي إسوافق الله أمانا يا تحقق شركة ما ودعي كرتادتك أبدان تودي شركة ودينو كالفقي لكن قلوب تودو أي ماذا يسنتهاي وحين عقيدة يسنهاي ذاتك مسلمين تإناني مدوبة هاي قف كستو من نمر المسلمين تتعالى وحن لنا ونحن كذلك نحب ذلك
arrinkaad baanu jecel wayuhimuna dhalik arrinkaasina warwar badan buu nagu hayaa iyo culays laakiin waxaanu caqiidaysanaynaa sida quraanka iyo sunnuba ay tusiyeen iyo manhaju salaf ummaddu waxa qura ay ku midoobi kartaa inuu yahay الرجوع إلى ما كان عليه النبي والصحابة إن الله نقضى أمده بقى نقطه وحي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابة ويكون صبنايين وعلم صافية وعقيدة منهج صحيحة وسليمة وبدقة بقى قف كستوى كلا يسكد يددك إنه مدايو oo arintaasi aan ku socon wuxuu noqonayaa geed sarawa waxbaad midaysabu is oranaya waxna ma midayn qadiyada marka laga hadlayo jamcu al-kalima dadka qaarkood waxay yiraahdaan salafiyiintu waa iskhilaaf naam kana ulama ahli sunna yakhtalifun ulama sunna waa iskhilaaf jireen waa dhici kartaa nin caalimi inuu dulmiyo caalim kale waa isku manhajiyeen inuu sameeyo baqi iyo taaddi in arday sheekh uu leeyahay sheekh ay taasubaan oo yataasabuna ala ghayri min al-mashayikh arrinka noocaasina waa arrin madmuuma لكن دعوة السلفية لا توجد فيها أحزاب تفرغ للدفاع الدين لقد الدعوة السلفية دحيث كمتشل الدعوة السلفية اسخلاف كايل كدو اسخلافان قف انحرافي موياني وما اسخلاف من عقدية أو منهجية وكنوح عقيدة كنوح عقيدة كنمانة كسعد بعض المسائل ودعي كرتين يسكو خلافان يضع يجمعين يسو دائرة السنة والدعوة السلفية وحي ظلمي يتعدي يبغي ذاتك غير كود كدعانا تاس أرنت نوعاسي وأرنا واجب كتاين إلهي وقتوبت كينان علماء الدعوة السلفية ما الدفاعي أنا أرن بين الرنكاسي والصح الدلين وكينان نيسكو دايمايا الدعوة السلفية وحكم إذا رأيتك في عن نولك يددك باي كل هذا أنها تحقق أسباب النصر في الأمة waxay xaqiijinaysaa umada ay gaarsiinaysaa saabihii lagu heli lahaa nasriga guusha lagu heli lahaa ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha waa ballan qaaday laakiin wuxuu ballan qaaday sifaad gooniye leh kana haqqan alayna nasru almu'minin ilaahay wuxuu isku waajibiyay cid ku waajibaysay ma jirtee inuu u hiiliyo u gargaaro cadawgooda uga nusreeyo ضدك مؤمنين تدبتا الذين حققوا الإيمان دعوة السلفية تاسيق باقي تحقيق الإيمان إيمانك وحي كفسرين وحي قرآن كي السنة وحي كفسرين سلف كوي قانين إيمانك كما معنى وحي مرجع كما معنى أما وحي خوارج إيا معتزلة وحي كفسران إيمانك وحي تلماميان إني واجب تايقفك إيمانك واجب كانوا لما يستره كانوا وكباقيان إلهي نصرك وحو كحيري تحقيق التوحيد توحيد كان لا حقيقيه ومد اي نقطه ومد قلبيgeedu ilaahay ku xidhayay oo ilaahay weyneenada subhanahu wa ta'ala markasto umada sifada laga waayay cadawgeeda u jabaysa tusaale u qaado taariikhdii tataarka iyo waxa dhacay markuu tataarku muslimiinta soo weeraray waxa muslimiinta dhexdooda ku badnaa cibaadatu al-adriha wal qubur xabaalaha ila caabud dadka qaar kood ba hatta tataarka xabaala ka magan galay halka ilaahay ka magan gali lahaayeen umada noocaas ay ma umad mudan nasriga ilaahay inay hesho وإذا شروط نصرها أياك مقن نصرها وحا لغو هليا نبي محمد عليه الصلاة والسلام راعتان كيسا إلا تحقيقيه وبدعاد الله يسكيل عليه وبدعاد وحي كمت من أسباب هزيمة المسلمين وذلهم أسباب صوابها كينا مسلمين تعادوا قودين وتشبان وهي الدلوبان جاهلية أيها مسلمين توحيابا عادوا قودة وتشبية كميضة ويحصاب نقول إن الدين تودي حق على خلافان وددي الصحة عيدنا أي بالمران أسبابتي واحد كميضة معصية نوعية كالدوان إيسيك الواوين الدعوة السلفية انت عن ليسكو قادين سياسات برلمانات لقالو كرسي مدحتني من لقو عرارو انت عن هبل قادن سيفانوا علم حكومة هين ومخرابة وخربت بدن waxay ka shaqeynayaan ummadan sida u yeelan lahayd sifaadkiya tilmaamihi ummadan qeybteedii hore nasriga ay ku heshiiyay guusha yuahiluna hadhihi al-umma lin-nasr ummadan waxay ka dhigayaan mid ehel waa nasriga wayasbiruna ala dhalika wa in tala at-tariq
arrinkaana way ku sabrayaan wadadu haba dheeraato oo midhihii markiiba yaanay arkin arrinka noocaasi ahi xataa walow lam yuxaqiq shay-an xataa haddaanu waxba xaqiijin oo qofkii daaciga ee salafiga ahaa dadku u yeedhayay sifaadka aana yeelan xataa hal qof aanu ka yeelan yakfiihim annahum waafaquu sharca allah waxaa ku filan inay waafaqeen sharcigii ilaahay waxay la mid noqonayaan ambiyada ilaahay uu soo diray ee cidiba aanay rumayn wayaati nabiyu walaysa macahu axad waxay iman doona nebi aanay cidiba la socon maxaa ku filan nebiga waxaa ku filan waajibkii ilaahay uu saaray inuu gutay isagu wadadu ilaahay yidhina marna inuu maray xataa laqiya allahu calayh ilaa ilaahay uu la kulmay subxaana wa tacaala isagoo wadadaasi ku sugan yakfihi hada intuu awoodaya uu sameeyey intaasaa ku filan dadka qaarkood waxay odhanayaan in cilmi uun dadka loo dhigo oo dadka la waaniyo oo la isku dayo waxa weeyaan in wax laga bedelo taasi goormay midho keenaysaa waa in kursiga markiiba loo boodo oo awood la yeesho wax lagu xaqiijiyo waa in siyaasadda laga qayb galo xisbi siyaasi oo dacwaddu ay leedahay la sameeyo qaarkood xagga dhaqaale iyo adduunya ayay u boodayaan dadka noocaasi ahi waa dad wadadii saxda ahayd ay ka khaldan tahay wadada ilaahay uu ku sheegay fii qawlih ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay qowmna xaalkooda ma bedelo ilaa iyagu xaalkooda ay bedelaan waa qof baalmarsan wadadu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sheegay in dulliga lagaga baxayo idaa tabaayactum bilciina waradiitum bizarc waakhadtum adnaaba albaqar wataraktum aljihaada fii sabiili illah sallata allahu calaykum dulla laa yanzicu cankum shay xataa tarjicuu ilaa diinikum marka ay dadku ilaahay diintiisa khilaafaan iib xaaraan ay wax ku kala iibsadaan adduunyada ay u jeestaan ay kaga mashquulaan wuxuu ilaahay u diray iyo u diyaargarowga iyo u sahay qaadashada aakhiro faralladu ilaahay saaro halkan jihaadku uu tusaale u yahay ay ka tagaan ay dayacaan wuxuu sheegay nebi maxamed ilaahay dulli inuu ku sallidayo waana sida xaalka muslimiintu maanta u yahay maxaa lagaga baxayaa laa yanzicu cankum shay xataa tarjicu ilaa diinikum kaasi oo wax idinka dulqaadaya aanu jirin ilaa diintiinnii u noqotaan cilmi ahaan iyo camal ahaanba arrinka noocaasi arrin saalan maaha gaalada maanta caalamka inala joogta ee le macaahidda iyo maraakista lagu sameeyo daraasaadka way ogyihiin waana arrinka sababay inay ku sheegaan cadowgooda koobaad inuu yahay addacwatu salafiya hum laa yukhfuuna dalika wanaxnu laa nukhfi dalika arrinkaa ma qariyaan bugaagyo kutub bay ku qoray wasiiradooda qaarkood dowladaha yurub ka mida telefishinada soo fadhiisto si cad u sheegay sidaasaanay u taxliiliyaan oo waxay idhaahdaan dadkan girifle markay afar inan uriyaanba qoryaha la boodboodaya waxbay nagama qaadi karaan inaga ka awood badan waanay muuqataa taas oo xarako kasta oo musallaxa bal adu halkay ku dambayso un eeg undur ilaa caqibati halkay ku dambayso bal adigu eeg kam min jamaaca musallaxa imisa ayaa jabahad hubaysan caalamulislaami ka kacdoo soo martay oo yidhi awood iyo xoog baan islaami ku soo celinayna iyadoo aynu ognahay awoodda muslimiinta ee qalbi iyo awoodda muslimiinta ee xoogga kalaba xagee ku dambeeyeen aynahum halkay ku dambeeyeen dad fara badan baa shicaaraadka iyo halkudhagyada iyo xamaaska noocaasi uu qaatay tana markii dambe niyad jabun ku dambeeyey ruuxan waa maxay qolo kastoo soo baxdoonu taageeraaba marka dambe baaba unbay ku dambaynayaan arrintu halkay si ka tahay waxay yidhaahdeen dacwaddani dadka waxay ka dhigaysaa asalafiyatu dadka waxay ka dhigaysaa nuskha min asaxaaba koobiyadii saxaabada ka mida waxay soo saarayaan muslim sidii saxaabadoo kale caqiida ahaan cilmigiisu cilmigii saxaabada iyo wax kale aan aqbalahayn cibaadadiisu saafi ay tahay soodii oo kale walaa walbaraagiisu uu yahay kii saxda ahaa oo si saxa u yaqaana man caduwuhu waman sadiiquhu yaa cadowgiisa yaa saaxiibkiisa marka u dambaysa dee dadkii sidaa ay ka wada dhigaan ama aqlabiyadoodu ay noqdaanna dee muslimiintu sidii beriga horeba inooga adkaayeen bay
ma inooga adkaanaya halkaasay taagayeen nin sheekha wuxuu yiri nin madaxa baa noo yeeray wadanka Ingiriiska ayuu joogaa saajid buu markaa muallim kay wuxuu ka hadlayay qarxintan iyo irhaabkan iyo waxyaabo noocaas ah si wax looga qaban karaa buu weydiin markaas waxaan idhi waxa looga qaban karaa in muslimiintu u noqdaan ila alkitaabi was sunnah ala fahmi salaf gaalkii baan saa ku waribuur afkiisa inta kula hadlay bal u fiirso dekaaga gaalka iyo sidoo u garanayo islaamka saxda muslimiintu haday u noqdaan in cadawgooda ka adkaanayaan wuxuu yiri buuri kitaabkiyo sunnu waa oreyd weey fahmi salaf ka inaga reeb وقالك إنجليزكا محود دليل كدك تحد ده مسلمين تقارب بابا الشيعة فهم السلف كان الشيعة صارية كلها قالك إنجليزكا ويقول فهم السلف كما هيستان وده صحابة دي بين عايان بوغيهاي marka arrinka noocaasi muxuu baahan sabr dacwo salafiya tabtaid wa tajtanib alfitan waxay ka fogaanaysaa oo ka durkaysaa fitanka way iska socotaa alxamdulillah wa yuslihu allah biha alibad walbilad sidaa arkaysana maalin walba bil walba sanad walba dad buu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hagaajinaya oo aqliyadu ay ugu saxmaysaa oo cilmi sax baranaya oo istiqaamaya toosnaan ka qaadaya iyagoo fitanu siyaasaad هي فتن القتال من نبيغو أنجلين وغيرهم كما ترى يقوم ويسقط سأذكر كيسو تدكي وددا ميدان هاي المري مرنا وكعيان مرنا ويكفيان منهجكي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ينودر دارمي بسيدة سوال عليها والنبي مركو تلمامي فتن كان إليه من دونان إنها ستكون فتنة صحابة وحي يرادين كيف لنا يا رسول الله فتنكم مركا دعان حانوا كبت بعدنا فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأمر الأول منهج كي هوريه والضرية هوراء النغضة تذكيدين كون ريه ونكسنا والضرية هيين تاو النغضة بول النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة السلفية رأيت كذا في عوحة كاميرا علمي صحدا إلا فافية ما علمي بارا دقا ضد با علمي دقا لكن واحد ربا علمي الصحيحة إلا فافية أو صافية تفسير هذين نقطة من القرآن كفسير أيان إسرائيليات إيو حديث ضعيف إيو مد موضوع إيو وحا كتاب كي لا يكفسر مايان قرآن كيف القرآن يكفسر أيان قرآن كيف السنة يكفسر أيان قرآن كيف يكفسر أيان الآثار السلفية آثار تأيي هذا الله إيا تفاسير سلف كالغس أوليه كابن عباس ومجاهد سعبد الله بن عباس إيا مجاهد وكله حديث كي مركا نقطه حديث او حديث متى ينرن كودو ما سبق قاركود هل كدغ بدعوات كقاركود اي نقطي waxa la yiri oo yaa yiri waxa la yiri ma ilaahay baa yiri ma rasuulka yiri inta tirin yaa ka soo wariyay ma fi isma weydiinaya waxa la yiri bay u taagan tahay حديث او حديث متى يرنكودو maaha bal waxay qabteen culimadoodu waajib aad iyo aad weyn Sheekh Al-Albani rahimahullah juhud caalam islaami aw muslimiinta uu qabtay casrigan cid u qabatay ma jirto qof inkiri karaana ma jiro mid Albani jecel mid Albani nacaba kutubta Albani ama ha qariyo ama ha muujiyo khudbadiyo darsiga kala Sahih Al-Albani ama Da'af Al-Albani waa u noqonaya kutubta Albani iyo baaxis kasta mid kasta wax qoraya waa u noqonaya waa amal jaliil weey oo kamida manhaj dacwa salafiyya in xadiidka la sifeeyo wixii nabiga kaleey salaatu salaam ka sugnaaday diin laga dhigto wixii kalena umada laga daadiyo wayna ogsoonahay al hadith dhaif wal mawdu'a raadka xuna ee kullada muslimiinta in misa aqeeda khaldan ku dhisan hadith dhaif ama mawdu'a ama ibada bid'a ama muamalo ama ba'd al 'aadat wal taqalid أما أخلاقيات يدقى مددك غاركود أي ليهين وصابوا نغضي تفريق الأمة ومضي إلى إسخلافته وأي كراتكته يصفون الحديث كذلك علم قد وعلم السلف والريائي وحالله يقان وحويان منامات يوحي اللمضة كشفي وحددك غاركود يكون شيئان وحيو علمي كما دكتان علمي وعلم النبي محمد عليه الصلاة والسلام لو سو دجيه laga dhaxlay weey العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم سين هذا tilmaana cilmiga markay fasirayaana waxay uula noqonayaan tafsiirkiisa iyo macnihiisa
tafaasiirtii iyo macnayntii salafka markay dabaqayaan ku amal falayaana waxay u dabaqayaan qaabkii salafka ay u dabaqeen tafsiirkii waynu tilmaanay xadiidkiina waynu tilmaanay fiqigi dad badan baa fiqiga dhigta kutub fiqi dhigta waliba kutubta madhabiga waligoodna ardaydooda aan daliil u sheegin حتى مسألة وأخرى هديتي مسألة دليل عد خلافا إلى عالمك كتابك قري معصوم ما هي ساسم يسوكم مرينيا وهذا غلط أما السلفيون فيربطون الناس بالدليل وحيدتك كحدا دليلك سقع يعني كتر بيديان إنه قفكو دينتي الدليل كقاطه إن قفكو يدو مسألة شيء الدليل وهيه ولما الدليل كاسي إنه السقية هي إنك لقرادو حديث إنه سكوصلوا saasoo kale macnihiisa inuu si sax ah u fahmo oo kutubta cilmiga waxa weeyaan waliba min ahli sunna inuu ula noqdo walaal dadka qaar kood waa ku dhibsadaan wixii ay sheegaan ba marka dhan maxay daliil u haysan arrinkaasina arrin la isku dhibsado ma aha waa arrin quraan ku xusan qulaatu burhanakum in kuntum saadiqiin dadkii wax sheegtay ilaahay sidaas u ku daliilkiina keena hadaad run sheegaysaan qaalat al-yahuudu وقال لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وحيدا أن تنقل ما يقف يهودي أو نصراني أبو يعني إلهي الدليل بوي الدين حد دليل هايسان وكذلك منهج كي السلف كي الصحابة أيه كم يدعي قف كي مسألة الشيقة إلا سمعت ذلك من رسول الله الصحابة بس يقولون من رسول قد كما غشارك ياد كما غش يعني محد دليل هايسان الدعوة السلفية رأت كذا في عوها كم يدع تحقيق أصلي الإسلام إن حقيقة الصوت لبدي أصل الإسلام التوحيد والاتباع توحيد كدتك إن لباره نرشود إن لو طبقه شرك كدتك إن لو عدى لو قدقه ولا دغ لما عروق دي سحيددي صلى صارو لا سيبو sidoo yeelay maxamed kaleey salaatu salaam qofka daaciga ay aanu gamin qalbigiisuna aanu raaxaysan inta ilaahay cidaan ahayn adduunyada dusheeda lagu caabudayo wala laga yaabo dadka qaar inay dacwad kale oo tawxiidka dhigdhiga kitaab tawxiid iyo usul thalaathiya waa jiraan waxaan leenahay juhuda abnaa dacwa salafiyya ay ku bixiyaan tawxiidka faafintiisa cid ku bixisa ma jirto la yujad من بذل مثل هذه الجهود مساجد كستو مانتا تكتو إعلانات باكو دقن طلبة العلم من أبناء هذه الدعوة كتب أيديان وكتب التوحيد ومر قرآن استاقهي ما رماد دوري أما مواسمتي واختيادة قار كل الله لا يكتب ووحسيت شوكتها والصعدة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام توحيد كشيغستي ستشوكتها ووذي أبناء هذه الدعوة توحيد كدغستيس يا شيغستيس سي جوجتابay u wadaan khudbadoodu ka muuqda muxaadaraadkooda duruustooda macaahidooda waxa kada takale tawxiidka si sathiyah sida xisaabtiya jamaacadka qaar kood ay u daraasayaan si sathiyo dul xaadis oo dul mar uma dhigan si daqiiqa baa loo fahamsiyaa ardayda dawaabidiisa loo dhigaa darjiirka laga ilaaliya qofku haduu tawxiid ka dhiganayo oo dawaabida masaa'isha aan loo dhigin inuu takfiir xaq daraa ku dhaco ayaa dhacda waana mid in fara badan la arkay wadada kitaab tawxiid loo laqbeeyay sida loogu dul maray dawaabid al-masaa'il al-aqadiyya wa tawxiidiyya aan loo dhigin waxa dhacday inay dadka biduun dawaabid iyagoon qawaacid sharci aan ka duulahayn dadka inay gaalnimo ku xukumaan oo diinta ay ka saaraan وديغودا اي حلاليان كذلك اصل كلمات اتباع بالدعوه الحقيقيه oo meel walba waxay kaga baaqaysaa inay maxamed kaleey salaatu wasalaam la raaco oo aqeedadii lagu raaco oo cibaadadii lagaga daydo bidcada la iska ilaaliyo oo inay maxamed kaleey salaatu wasalaam akhlaaqiyadkiisa iyo muaamalaadkiisa la yeesho waxay ku baaqaysaa dacwadu inay noqoto dacwadii inay maxamed waafaqsan bal adigu arag cid arrinka ka hadlayso oo kale idle war dacwada lafteeda u baahan in la miisaamo laga dhigo dacwadii nabiga waafaqsan oo asaasiyadii dacwada nabi maxamed ay lahayd leh la yujad bal الدعاة السلفيون markay ka hadlaan dacwaadka manhajkii nabiga kaleey salaatu salaam wax ku khilaafsan markii waxa laga yaabaa in la yiraahdo dadka salaada ugu yeedhay khayrka u sheegay baa ka nabad galila haduu naga nabad galo de khalad buu ku jiraya
inaanu naga nabadgelin baa annagana noo fiican isagana u fiican illa dhiigiisana daadinayna xoolana ka qaadan mayno waan saxaynaa sooma sidii saxda ahayd u baanu sheegaynaa sidii khaladka inay iska daabaan laan maxaanu yeelaynaa isaga baanu daraynayna xataa haddii ay dhacdo mararka qaarkood in hadalka lagu xanuujiyo sida uu dhahay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullah qofka muuminka wuxuu yahay labada gacmood ismeeylay almu'minu lilmu'min kaliyadayn taghsilu ihdahuma al-ukhra muuminka wuxuu yahay labada gacmood ismeeylay وقد لا ينقلع الوسخ إلا بشيء من الخشونة وحديعي كرتا أسكا قعنتا كيالا إنو يامد أدقو كدقن وقعنتا كلا إنو حنوشي سمو يانا سكلا عنك قوين هذا قعنتا كلا كعبتك ورم ويتر هذا محايو كاسل إذا أسكا قيدا وادي حنوشي سوادي لبتاي qofka muslimka ee kule masalada waad ku khaldan tahay daliil uu weydii laakiin ha oran arrinkayga lama hadli kartid boo khaladan leey ma soo hadal qaadi kartid ha oran adigaana taasi dan ku ahayn insaan baa tahay khalad baad yeelanaysaa macsuumatid caalim ahaw talib ilmi ahaw ayan kan salafiyan aw khalafi hadii lagu waxa waad ku khaldan tahay qofka kule waxa waad ku khaldan tahay daliil uu weydii haduu daliil keeno raac وقال ما عنده جزاك الله خيرا ولو كان الشيطان يسوي هدو دون الشيطان بعنقضي شيطان جزاك الله خيرا ما لقوه رميه مايا وفك مسلم كذا له الدعيرية طيب حدانو الدليل كاننا حق ذاتك الدليل كوها يسطو قادو دعوة سلفية بدعادة فالحمد أي يداها ومضى وقاعدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول ضيانسه خطبت كسته أي النبي عليه الصلاة والسلام بدعادة وكقال الجن والدعوة ده انت ugu badan bidca ka hadasha waynu ognay jamaacadka qaar kood dacwada ku abtirsanaya manhajkaba ugu ma jirta bidca in afka la soo mariyaba wax bidca la yiraahdo gabigeedaba miyay mas'alada markaynu ku hadlayno miyay waafaqeen Maxamed soo khilaafay in kunta musifan sa'ad badu garanaysaa inay Nabi Maxamed khilaafay Nabi Maxamed wuxuu oran jiray wa iyaakum wa muhdathaati al-umur wuxuu oran jiray man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad وحورن جرى من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد وحورن جرى وشر الأمور محدثاتها ولما وكوع العلم جرى قفك منهج كدكتي إن الله بصوا هذا القادم بدعو ولما كسر بينيا حدي الله صوا هذا القادم كلا حقيقة قفكاسي والوسيح نبي محمد عليه الصلاة والسلام دعوة دي سمو وافقتنا كان هالمسألة داس دعوة دي نبي محمد عليه الصلاة والسلام يكون خلاف صدر arrinka toddobaad mid baa ka dambeeya dacwa salafiya umada waxay ka fogeynaysaa fitanka tubciidu hadi umma an fitan meel kasto dacwa salafiya ay ka hana qaado fitanku way ku yaraadaan garan fitanka maanta la yaqaan fitnatu takfir gaalaysinta xaq darrada ah iqtitaalka islaamta muslimiinta ee diinta loogu abtirinayo ee magaca jihaad loo bixinayo meel kasto dacwa salafiya ay ku xooganta arrimaas way ku yariin أي بلد انظر إلى بلدنا هذا بلد كنا لك فتن كالنوع عاصة بلد كنا وحكور استاقي معها حق إيا أود دولدين يعيد ما أمنك إلالية فتن كالنوع عاصة علمي أهان يدعوة أهان بالقهر استاقي وذلك المساجد كان هذا المسجد مسجد نخيل معلمين إلا فري مدينك labaatan sanadood ku dhow ana 19 sanadood ka hor meelahaas iyadoo qaraxyo wadankan aanay ka dhicin ayaa ducaatu ad-dacwa salafiyya ay ka hadlayeen qaraxyada xukunkoodii iyo xumaantooda ay cadeynayeen way waxay ogaayeen beledka inay joogaan dad afkaarta noocaas faafinaya oo dhalinyarta ku talaalaya dad fara badan baa arinta noocaas ducaatu ad-dacwa salafiyya ku dhaleecayn jiro kula yaabi jiray qaar badan markii dambe waa garaabeen waxay yiraahdeen waxaan anagu ogeyn baad idinku aad ogeydeen saasay yiraahdeen ana laga yaabo iyagu inaan ogeyn qaar ogaana waxyaabo kale ilaashanayeen ama xisbiya arinta noocaas ka inda tirto ama wax kale masaalix kale ay difaacanayaan waxay yiraahdeen qaarkood waliba cilmiga loo nisbeeyo sanada ka hor waxay nagu yiraahdeen 10 sano ka hor wixii aad ka hadlayseen ayaa maanta wadaadadii daahan idinka waaweynaa markii biyuhu gogoshoodii ay ugu soo galeen ay ka hadlayaan inay ka hadlaan waxa weeyaan ceeb maaha laakiin
arrinka qura muhiimka waxa weeye dacwadii iyo dadkeedii markii hore lagu ceebeeyay dee qofku waa inuu ka dalbo saamaxaadii cafs ruuxaasi adaa ku saxsanaana waa khaldanaaye waxa weeyaan dee saamaxnaaku ama yacaf inay ku saxsanaydna cala alaqal wanaagga la iskagama bakhayle waa in dadka loo sheego la yidhaahdo iyagaa saxsanaa markay saa lahaayeen annaguna waanu khaldanayn adacwa salafiya fitanka mudaaharaadku ay ka mid yihiin takfiirka xaqdarradu ka mid yahay thawraadku ay ka mid yihiin kacdoonadu ay ka mid yihiin dagaalada fitanka ee magaca jihaad loo bixiyo muslimiinta dhex maraya maalinna may tabirin lam tubarir dalika yawman min ad-dahr maalinna sax umada uguma sheegin iyo wax hagaagsan mar walba waa ka digayeen iyadoo mararka qaarkood jamaahiiru naas dadka badankoodu waxa ay taageersanaayeen wadogtiin markay maxaakimtu soo baxeen ghalibiyatu naas awaam iyo cid kalaba lihi waa u rixiyeenoo aad bay u soo dhaweeyeen wax wanaagsan bay u arkeen laakiin ducaatu dacwa salafiya halkoodii bay taagnaayeen in hadhihi fitna fabtacidu anha waa fitna ka fogaada bay lahaayeen cidii dacwadan u abtirsanaysa waxa noocaas taageertayna way inxiraafeen walkii ay maalinta gaadheen hadda waaba ka sii fogaadeen waa sii durkeen wadogtiin caalamul islaami thawraadka ama kacdoonada ka dhacay say dadku u taageersanaayeen magaci fiican baa loo bixiyay rabiicul arabi guugi carabta leeyahay guugi carabta guuna ma ahayn rajiic buu ahaa rabiic ma ahayn rijsi buu ahaa iyo xumaan umada dambigeedii awgeed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ciqaabay waxa la isgarab dhigay hadda oo youtube-yada ku jira oo dadka talabatul cilmi iyo dadka kale ay daawan karaan wadaadadii axzaabta iyo xarakaadka caalamul islaami siday u taageereen kacdoonadaas يوسف القرضاوي ugu horeeyo oo leh هذه ثورات نعمة من الله على هذه الأمة كعدونادنا waa nicmo ilaahay ummadan ugu nicmeeyay saasunuwa waxa garab yaala وهذا من العجيب علماء الدعوة السلفية الكبار وبدنكoodu ثورات kanaanay soo gaarin horteeda ay dhinteen horteed dhintay وهذا ثورات ka hadlay ummadda uga digay Sheikh Al-Albani Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Uthaymeen Sheikhuna Sheikh Muqbil kuwa mucaasiriinta ma axyaada ay hadda nool hadalkooda badaa kuwani waxay lahaayeen afraad baa dhimanaya nin kamidaan dhageysto aad iyo aad arrinkiisa aan uga yaabo wuxuu leeyahay dadku soo kuwan ku dhinta xawaadithu sayr gawaadhida isjiidha iyo kuwan qalidma iyo dhalinyartu iyagoo ciyaarayo gawaadhida xataa ku ciyaaraya khaliijkiiba laga sameeyay soo kuwan ku dhimanaya 5 afraad haday dhintaan taa dhintaan falyamuutu buu kulay ciziya sharaf baa ka damaynaysa ummadda waxay u ballan qaadeen thawraadkaas iyo kacdoonadaas in cizo lagu gaadhayo in xurriyo lagu gaadhayo in waxa lagu gaadhayo inta lagu gaadhayo maanta labada hadal way is hoos yaaliin qofka xaq doonayana waa arki karaa natiijadiina aday ku hortaalaaba uma baahni daraasad iyo baxthi iyo tadqiiq arrimaha in la qodo hoos loogu dhaadhaco natiijadu waa bayna aynayk aday ku hortaala natiijadu waa ta ka muuqata Suuriya natiijadu waa ta Yemen ka muuqata natiijadu waa ta Liibiya ka muuqata natiijadu waa ta Masar ka muuqata natiijadu waa ta Tunis ka muuqata Tunis maxaa soo qaadanaya dadka qaar kood waxay yiraahdaan wadanka qura thawradii ay najaxday waa Tunis bay yiraahdaan ma najaxat thawra thawradii ma najixin baa leeyahay bal khasirat wa fashilat way khasartu way fashilat ninkii Zaynul Aabidiin magaca la oran jiray baa meesha ka tagay Soomaa waxay isbedelay adduunyadu waa iska sideedii diin soo korodheeyay ma jirtay diintu waxa ka sii gooyba Soomaaliya maqalka hadda haysta inuu yiri ragga iyo dumarku wax walba waa ka simeeyeen arrinkiisiyaad barro oran jiray waqtigaad garanaysan ama aad maqasheen qofka yiraahdo ragga iyo dumarku wax walba kama sinana wala xiraya حزب علمانية بعد الإخوان المسلمين السلطة ولا يسود يبدي يا دستور كما سيدا دغيا ادغو هذه قرار حزبيه بعد الإخوان المسلمين حزب إسلامي يا حزب علماني با قبصدي تونس markaas waxa kaaga daran kuwii islaamiyiinta sheeganay waxay yiraahdeen waanu hanbalyeynaa bay yiraahdeen waayo thawradii aanu sameeynay
iyo dimuqraadiyaddii aanu xaqiijinay nataa'ijteeda arrintaasi ka mid tahay inuu xisbi islaami si silmi oo nabadgelya xukunka ugu wareejiyo xisbi calmaaniya wali waa ku ambalyeynaya duu iska aamusi lahaay thawraadka nataa'ijkoodu waxay noqdeen waad aragtaan nataa'ijkoodu waxay noqdeen الدول الكافرة inay fursad u heleen muslimiinta inay ka dhex shaqaystaan oo dawlad kasta oo fawda ay ka dhacday maraakis waaweyn bay mukhaabaraadkii caalamiga ah iyo adduwal kaafira ay ka dhex samaysteen ciday doonaan bay wadankii ku dhex dilayaan waxay doonaan bay ka samaynayaan khayraadkii dhulka islaamka la guranaya waayo cid loo soo maro hadii berigii hore la oran jiray madaxdu gaaladay wax siiyaan kuwii la gaaladay wax siiyaan muslimiintana way xooari jireen meesha markii laga saaray de gaaladii wada qaadatay iyagiiba guranayaba oo kuwa muslimiinta Ciraaq waa aqna balad carabi waa baladka ugu hodansan duwal carabiya waa kuwa ka gaajaysan sarwadooda ilaahay dhulka u dhigay gaalana ay daldalanayaan ay guranayaan Liibiya sidaas oo kale dhaqaale uga kordhin boqolaal kun oo muslimiin ayaa dhintay boqolaal baa qaxay oo gaalo in badan afka ay uga galeen meelo fara badan dacwadii iyo khayrkii ka socday ayaa istaagay waa sidoo sheegay Sheekh Islaam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala diinna may oogin dadkii waxa sameeyay adduunyana may baaqi yeelin madiin soo korodhay baad ku aragtaa wadamadii thawradii kacdoonku ka dhacay ma jiro qof oran kala diin baa soo korodhay ma waxaad aragtaa adduunya la baaqi yeelay mid kale soo kordhay iska daaye tii hore ayaan baaqi ahay waxa qura ee cadawgu maanta oo oran kara dadka shucuubta uu ku oran kara waxa weeye shukran lakum ala musaa'adatikum lana ala tadmir biladikum aad baad muslimiin ugu mahadsantihiin inaad nagu caawisaan wadankiina inaanu burburino culimada dacwa salafiyya waxay garanayaan ay ogaayeen arinta noocaasi inay shartaay dariiqa sharciya inaan ahayn khuruj ala al-hakim nabi maxamed ba haakimka jaa'irka zaalimka inaan u sabirno in faray oo inuu waajibiyay fi 10 al-ahadith in hub loo qaato ama amar diidan lagu sameeyo laga hor yimaadana diiday sabra buu nabi maxamed sabra sidaas ay lahayn culamaa dacwa salafiyya sharci iyo diin iyo manhaj ay wax ku saleeyeen halka dadka kale xamaas iyo caadifad iyo wixii la halmaalay wax ku saleeyeen waxay eegeen culimada dacwa salafiyya caaqibatu al-umur hatta qofka muslimka aqoon lahayn waa inuu ku cibro qaato waxyaba soo maray arrinka ka iskaal galana waa inuu caaqibadiisa eego sidoo raa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala hadii shayga caaqibatu ay tahay sayya cirib xun haduu shaygu leeyahay inuu xuyaa way ku cadayba wixii wanaagsan ciribtiisa wanaagsanaata wixii xunna ciribtiisa xumaata yu'rafu shay bi athari shayga raadkiisa waxa ka dhasha ayaa waxyaba xumaantiisa iyo wanaagiisa lagu garto kamida ahlu dacwa salafiyya fitanka waxyaba ilaahay kaga badbaadiyo waxa kamida ixtiraamul ulama wasuduuru an culimada in la ixtiraamo oo markay nawaasisha iyo arimaha waaweyn umada la soo gudboonaadaan in culimada arimaha loo celiyo sida ilaahay uu wa idha jaa'um amru min al-amn aw al-khawf adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه وحيوغين بركضوا إلى لجرت علماء واوين علميها يدعها يجي مسايشة فتوى وقدم بيين عندي مقشي يجب إلهي سبحانه وتعالى فتنك وكبد باديه وعن كسور قبين يا بارك الله فيكم دعوة السلفية الرهاد كذا في عوحة كمدة إحياء منهج السلف في بيان الحق والرد على المبطلين دعوة الوحي نولينسا إنه تشيران الصحابة أو نقونيسا منهجك حقها ومنهجك السلف كوا باطل كان لروا باطل سعد قفك باطل كسعدنا إلى روا من أهل الباطل أما هو مبطل حق قفك خلافة إلا الردية وعلمي هي حكمة لقول الردية iyadoo marka koowaad diinta la difaacay khaladku isaanu ka mid noqon iyadoo isaga loo danaynayo si aanu khaladka ugu dhiman iyadoo muslimiinta loo turayo si aanay khaladkiisa diin u moodin oo umrigooda iyo waqtigooda qaaliga aanu uga lumin iyadoo laga shaqeynayo muslimiinta
midnimadooda way wax kasta oo khalada gaaraan diinta loo nisbeeyo loo tiiriyo oo ummadan dhexdeeda yimaada ummadan uu kala geynaya oo kala kaxaynaya والسنة تجمع والبدعة وتفرق سنة dadka waa kulmisa waa midaysa bidcaduna dadka waa kala geysa manhajka noocaasi wuxuu kamid yahay jihaadka ilaahay diintan uu ku ilaaliyo ku xifdiyay سوري يحيى بن يحيى الراد على المخالف أما الراد على أهل البدع مجاهد قفك البدع الردينية وقف مجاهد هو نوع من الجهاد ووحي إلى الدين والإسلام وكو إلاليه والدعوة شقضى نوعها سقبت ضدك كله وإسوء مسيء وحي هوصوص إسوء هذا المهم وأنا إسلا السايرة يا ربي ولما ككل خلت كيسة ولا السايرة لكن دعوة دني مسلمين تخيرك ولا قيد والله تشعل دينتنا صفاء قيد إلى لنا يسا وحي خلدن وخلط بيلاده وأنا أرن كم إذا الأمر بعرف أنها عن المنكر وأنا أرن كدد بدنا يدي بصدين سيأي أفضل حمايانا أي مقعي وبحسين وعي وحبي عايان بأورانيا لا قفك إلا عايا إلا روحة وسمي وخلط لو مسألة كريم عيد وحاران سباب المسلم في السوق وقتال وكفر الرد على المخالفة أو على المخالفنا ومن الدين وحكمت أمر بمعروف كأمدنا يكون قطي خير أمة ومبدأ خير كبلان والشقاد السمين ترين محمد اسكداف عيد كلو حق عاد وقفوقي صحابة دي سوى عدة حق خلافته ولن تروات خلافته يوصل نقول كذلك الصحابة وكذلك السلف وهذه الأمة ومن تبعهم على إحسان من علماء الملة والضبع سيئي كو سعودين أرنك نوع سنة فوضك بردقان علماء الدعوة السلفية طلبة العلم كما يرهدان هدانا نولبوا وحرد لما يرهدوا بل طلبة العلم السعاد بالوغو يرهدا تراهن قفك العلم مبتدي كوا ان غارين وقت اسغو وددو خدغو اما u jeediyo cilmiga baraba la yiraahdo waa ku mashquulin radin iyo ciidaad wax ka sheegtiyo muran iyo waxa ku mashquulin meeran cidii arinta awood u leh cilmiyeed iyo aqliyeed haloo daayay bay yiraahdaan hayda iyo aflagaadada iyo dhaqan xumada iyo akhlaaqda aan wanaagsanayna cidii sameynaysa waa zajriyaan dalabadii ardaydoodana waa uga digaan kii waxa weeyaan waxyaabaha noocaas ku kacaana isaga naftiisa ku matalay ima mid ku matalay dacwa salafiya iyo culimadeeda iyo muallimiinteeda ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo weydiinaya an yuhiyana ala alhaq wa yumitana alayhi wa yaghfir lana jami'an ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبارك الله فيه إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابل مريو محاضرة أدك وقيمها بدل شيخ ونوشيدي الكان وحي نوغو سو غبغبي اما نوغو دماداي محاضراتكي مسلسلكاها ciwaankeygu ahaa هذه هي السلفية فاعرفوها waxaanu mahadnaqaynaa culimada aadka u qiimaha badan leh ee muxaadaraadka aadka u qiimaha badan leh noo soo diyaariyay waxa kale oo raacin lahaa باذن الله تعالى دروستي شيخ عبد الله البربراوي way bilaabmi doonaan usbuuca soo socda ardaydii la socotay ee dhigan jirtay waxaan ogeysiinay inay soo diyaar garoobaan duruusta باذن الله تعالى usbuuca soo socda inay noo bilaabmi doonaan halka ayay noogu dhamaatay صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة، تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.